Kooxda Chelsea ayaa ka cabsi qabta inay weyso xiddiga weerarka kooxda Napoli ee reer Nigeria Victor Osimhen xilli ay tartan adag kala kulmayso kooxaha Paris Saint-Germain iyo Arsenal. Warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa daabacday in kooxda Chelsea ay si weyn uga baqdin qabto inay xiddigani ka afduubtaan kooxda ka dhisan dalka Faransiiska iyo kooxda ka dhisan dalka Ingiriiska ee PSG iyo Arsenal. waxaana kooxdan Chelsea ay si adag u danaynaysaa in 25 jirkan ay la soo saxiixdaan. Victor Osimhen ayaa ku dhawaaqay markii uu dhammaado xilli ciyaareedkan inuu isaga dhaqaaqi doono gegida Sambola ee kooxda Napoli, inkastoo uusan sheegin kooxda uu sida rasmiga doonayo inuu ugu biiro. Bishii aanu ka soo gudubnay wakiilkiisa, warbaahinta oo soo xiganaysa waxay sheegeen in ciyaaryahankan uu doonayo inuu ku biiro kooxda Gunners ee ka dhisan magaalada London, laakiin ma cadda. waxaana Osimhen uu doonayaa inuu ka ciyaaro xagaaga soo socda meel ka baxsan horyaalka dalka Talyaaniga. Kooxda Manchester United ayaa sheegtay inuusan iib ka ahayn ciyaaryahankooda Marcus Rashford, kaasoo 26 jir reer England ah, islamarkaasna maalinimadii shalayto lacag aad u dul badan ay dul dhigtay kooxda ka dhisan dalka Faransiiska. Kooxda PSG ayaa sheegtay maalinimadii shalayto inay xiddigani ku doonayaan lacag u dhaxaysa 100 milyan ilaa 80 milyan oo ganiga sterling ah, laakiin kooxda Man United war ka soo baxay maanta waxaa lagu sheegay in ciyaaryahankani marnaba aysan kooxda Man United diyaar u ahayn inay iibiyaan. Marcus Rashford ayaa kula jiray heshiis dhacaya 2028 kooxdana Manchester, mana muuqata haatan in Man United diyaar u tahay in la qiimaha ay kooxdani PSG soo bandhigtay xiddigan ay ku bixiyaan. Paris Saint-Germain waxay doonaysaa inay xiddigani ka dhigato beddelka Mbappe oo xagaaga soo socda qorshuhu yahay inuu ka dhaqaaqo kooxdani PSG. Kooxda Katefa ee ka dhisan dalka Isbaanishka ayaa la sheegay inaysan awoodin inay haystaan Mason Greenwood oo la sheegay inuu heshiiska amaahda ah uu kula joogayo uu ku egyahay xilli ciyaareedkan, isla markaasina kooxda Manchester United oo milkiilayaasha xiddigan iska leh ay go'aansatay in ciyaaryahankani iibiyaan. 22 jirkan reer England ayaa kooxda Katefa kula qaadanaya 2 sano amaaha, waxaana soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan oo soo jiitay kooxaha ka dhisan horyaalka dalka Isbaanishka. Yeeshee kooxda Manchester waxay xiddigani doonaysaa inay ku iibiso lacag lagu sheegay 50 milyan oo euro, waxaana iminka arrintaasi si weyn walaaca uga abuuraysa kooxda Katefa oo la sheegay inaysan xilligan awoodin inay ciyaaryahankan iibsadaan. Kooxaha Barcelona, Bayern Munich ayaa si weyn u daneynaya saxiixa ciyaaryahankani reer England. Kooxda Manchester ayaa lagu soo waramayaa inay dib u dhigtay heshiis cusub oo ay la ka saxiixi lahayd ciyaaryahanka reer Belgian ee qadka dhexe Kevin De Bruyne, waxaana la sheegay in xiddigan 32 jirka ah ay kooxda Manchester City qorshuhu ahaa inay heshiis cusub oo waqti dheer ay ka saxiixaan, laakiin sida ay warbaahinta dalka England ku soo waramayso waxaa la sheegay in dib loo dhigay saxiixa heshiiskaasi. Lama oga sababta ka dambeysa, laakiin haatan De Bruyne ayaa waqti sanad iyo bara waxaa uga haray heshiiska uu kula joogo kooxda Manchester City. Kevin De Bruyne waxaa si hadal looga xiiseynayaa horyaalka dalka Sacuudi Carabiya. Kooxda ka dhisan garoonka Stamford Bridge magaalada London ee Chelsea ayaa lagu soo waramayaa in kooxda Paris ay u dirtay waraaq furan oo la xiriirta in ay doonayso difaaca dambe ee kooxda Paris, ninka la yiraahdo Milos Kerkez. 20 jirkan ayay si adag u danaynaysaa kooxdani Chelsea, inkastoo ay tartan kala kulmayso kooxda Manchester United. Ciyaaryahankani ka soo jeeda dalka Hungary ayaa soo jiitay kooxda Chelsea, waxaana ay doonaysaa inay garoonka Stamford Bridge ay keenaan. Ma jiro dhanka kooxda Paris waxay hadala oo ilaa iminka dhankeeda ka soo baxay oo la xiriira in xiddigani iibi doonaan iyo in kale. Kooxda Aston Villa ayaa lagu soo waramayaa inay kalsooni buuxda ku qabto, isla markaasina ay awoodi doonto inay ilaashadaan difaaca qadka dhexe ee kubadburiyaha ee Douglas Luiz, kaasoo si aad ah u daneynayaan kooxaha Arsenal iyo kooxda Newcastle United. Douglas Luiz si weyn ayaa loola xiriirinayaa kooxda Arsenal, laakiin kooxda Aston Villa uu hogaamiye tababare Emery waxa uu sheegeen inay ku kalsoon yihiin in xiddigani ay sii hayn doonaan. 25 jirkan ayaa si adag loogu xiiseynayaa garoonka Fly Emirates, laakiin Aston Villa
waxay weli ku adkaysanaysaa sii haynta xiddigan iyadoo bishii January ee bilowgii sanadkan gebi ahaanba diiday inay xiddigani ka iibiyaan kooxaha Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle iyo kooxda Barcelona. Tababaraha xulka dalka England Gareth Southgate ayaa lagu soo waramayaa in uu u sheegay xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska inuu doonayo inuu isaga dhaqaaqo xagaaga soo socda xulka dalka England. Waxa uuna la sheegay inuu kulan uu la qaatay xiriirka kubadda cagta ee dalka England oo uu sheegay mustaqbalkiisa inuu hoggaanka xulka dalka England sii hayn doono ilaa dhamaadka koobka Yuuraha ee 2024. Tababarihii hore ee kooxda Manchester City Roberto Mancini ayaa lagu soo waramayaa inay maamulka kooxda Newcastle ay qadka taleefanka kula xiriireen iyaga oo doonaya inay ku bedelaan tababaraha haatan kooxdani hogaamiya Eddie Howe. waxaana la sheegay in Mancini uu arrintaasi ka gaabsaday. Mancini oo haatan ah tababaraha xulka dalka Sacuudi Carabiya ayaana la ogeyn go'aanka rasmiga ah uu qaadan doono, laakiin Newcastle waxa ay boggeeda ku shaacisay inay xiriir ay la sameeyeen tababaraha reer Italy Roberto Mancini. Ma jiro go'aan rasmi ah oo labada dhinac ay gaareen, laakiin Newcastle ayaa ku raad joogta tababare ay ku bedesho tababaraha haatan kooxda hogaamiya kaasoo lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqo kooxda Liverpool. Sidoo kale kooxda Newcastle United ayaa qorsheynaysa beddelka agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Newcastle Dan Ashworth oo la sheegay inuu qorsheynayo inuu isaga dhaqaaqo kooxda Newcastle asigoo qorshuhu yahay inuu ku biiro kooxda Manchester United. laakiin haatan waxa ay heleen beddelka Ashworth waxaana la sheegay inay xiriir ay la sameeyeen agaasimaha guud ee kooxda Monaco ninka la yiraahdo Paul Michel kaasoo ay u arkeen in uu yahay nin si ku meel gaar ah u bedeli kara maadaama ay la dhaceen qaabka maamulka ee kooxda Monaco maamulo. Kooxda ka dhisan dalka Boortaqiiska ee Braga ayaa la sheegay inay ka fikirayso iibinta gooldhaliyahooda Antonio Nusa. 18 jirkan ayaa si aad u soo jiitay kooxaha ka dhisan horyaalka dalka England, waxaana kooxaha sida aadka u daneynaya ugu horeysa kooxda ka dhisan West Ham ee Tottenham, Arsenal oo ka dhisan Emirates, Chelsea iyo Manchester City ayaa dhammaantood la sheegay in ay dalab ka gudbiyeen ciyaaryahankani dhalashahaan ka soo jeeda dalka Norway. Nusa ayaa soo jiitay indhaha kooxda Braga waxaa la sheegay inay ka fikirayso inay xiddigani iibiyaan iyo in kale.